safarkaygana wuxuu daaran yahay waxaan kasoo kicsanay magaalada Garowe waxaan isugu jirnay wasiiro iyo xildhibaano waxaan isu kala qaybinay gobolka Sanaag iyo gobolka Highland anigu waxaan kamid ahaa wafdigii soo aaday gobolka Highland shalayto waxaan nimid magaalada Dahar iminkana waxaan joogaa magaalada Hengalool safarkana wuxuu daaran yahay waxaad ogeeyeen maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqda wadin Maleeshiyada Hargeysa ka soo duushay waxaan soo degan degmo kamid ah gobolka Sanaag arrinkaas safarkaygu daaranaa iyo inaan u koorgalo xaaladda abaareed ee ka jirta Highland iyo gobolka Sanaag waayahay marka maxaa ilaa hadda idin qabsoomay waxaan oo qabsoomay run xaqiiqadii dadkii deegaanka ayaanu wacyi gelinaynay wacyigelintaas oo ku saabsanayd inaanu arrimaha abaaraha iyo sida ay u saameeyeen inaan ogaano iyo sidii dadkani deegaankooda iyo dalkooda u difaacan lahaayeen gobolka Sanaag duulaan baa ku yimid duulaankuna wuxuu kaga yimid dhinaca maamulka maleeshiyaadka Hargeysa waxaana la sheegay inay damacsan yihiin inay hore u soo socdaan deegaanka gobolka Sanaag iyo gobolka Highland waa Puntland dadkaasoo daandaansaday gardarrada kusoo duulay ayaa dadka ku wacyigelinaya sidii looga hortegi lahaa gacmaha la isu qabsan lahaa amnigoodana ay u ilaashan lahaayeen marka wacyigelintaas marka laga reebo xildhibaane maxaa tallaabaayo dawladdu ay qorshaysay in ay ku difaacdo deegaanadii horta sida aan la soconay imika dawladani waa dawlad cusub doorashana hadda ka soo baxday sidaad hadda ka war haysaana saddexdii casho ugu dambeysay madaxweynuhu wuxuu shir u qabtay ama shirka ku qabteen magaalada Garowe ay kaga hadlayaan qorshe sanadeedka 5 sanadood ee soo socota waxaana lagu jiraa xilligii tayeynta ayaa hadda lagu jiraa sida halkudhig waxa madaxweynuhu in la tayeeyo dawladda hadda dina la gaaro tiigsi marka qorshaha dawladda hadda dejisanay wuxuu yahay in dib loo habeeyo ciidamadii daraawiishta kadibna la dejiyo rugihii loogu talagalay ay ka difaaci lahayn maamul goboleedka Puntland iminkana anagu waxyaalahan u soconaa qorshaha xukuumadda wuxuu ahaa bal inaanu soo kormeero meelaha ciidamada deganaayeen iyo baahiyahooda waayahay marka qorshaha dabcan waa qorshe fog hase ahaatee hadda xaalad baa taagan oo Somaliland ayaa markaas gobolkii kusoo duushay haddii la yidhaahdo qorshaha waa laga fakerayaana maadaama deegaano ay qabsadeen kuwo kale ayay u socdaan hadda inay qabsadaan maxaa tallaabo ah oo maadaama dee golihii sharci dejintana aa ka mid tahay dee tallaabo waanu qaadnay waanan kuu soo sheegay dhafay tallaabo waanu qaadnay ciidamaanu geynay xagga dhinaca barameed halkan degmada Dahar iyo Hengalool hadda ciidamaa naga raacay waxaanu kusii soconaa jiida hore dagaalka iyo meesha ay joogaan maleeshiyaadkaasu dee ciidamadaasina waa diyaar kuwo kalena waa soo socdaan waxaana lagu sii socdaa meesha ay nimankaas yimaadeen iyo sidii looga saari lahaa waayahay dhanka xaaladda abaaraha haddii aad u kuurgasheen waa sidee xildhibaane xaqiiqatan waxaa jirta abaar aad iyo aad u baahsan deegaamadii aan marnay oo dhan runtii waxaa ka jirtay abaar fool xun dadku aad waxay uga cabanayeen biyo la-aanta beedka wuu sii dabargo-ayay xoolaha waxaad moodaa hadda inay arag fiican yihiin laakiin waxay cunaan hadda oo ay gooyaan may haynin laakiin waxaa ugu darnaa meelihii iyo deegaamadii aan marnay iyo dadkii aan la kulanay intuba ay ka cabanayeen waxay ahayd biyo la-aan waayahay marka fariintaada aad dirayso shacabka Puntland maxay tahay xildhibaan shacabka Puntland waxaan u sheegayaa in weeraro fara badan ku socdaan ama buurta Calmadow iyo buurta Calmiskaad ha noqoto gaalkacyo ha noqoto